sidee loo setup gareeyaa iPad cusub looguna xiraa Apple ID cusub. halkan ayuu marka 3 option ku siinayaa. ugu horeyso haddii aad ilowday passwordki ama laba ID-gi ama aad doonayso inaad Apple ID cusub samaysato, sidoo kale marka waxaad samayn kartaa inaad iska daysoodan waxba sameynin oo setup later in the setting baad oran kartaa. laakiin tan macno badan hadda nooma sameynayso waayo ma isticmaali karno iPad-ka haddii aanan Apple ID haysan. marka waxaan leenahay create Apple ID. halkan marka waxa kaaga bilaabanaya registrationki ama diiwaangelinta ay kaaga bilaabanayso. fadlan markasta xasuusnow inaad magacaaga oo saxda aad geliso, date of birth-kaaga oo saxda aad geliso. haddii lacal Apple ID-gan uu ka lumo ama ma aragtay ay cilad ku timaado oo aad damacdo inaad soo ceshato, macluumaadkan ayaa lagugu xiri doonaa. fadlan marka geli magacaaga saxda ee kuugu qoran ID-ga ama passport si aad markasta macluumaadkaaga dib ugu hesho. haddaan marka ku bilaabo magacayga koobaad, kadibna aan surname ka geliyo, kadibna halkan ku dhufo si aad taariikhda dhalashada u doorato. halkan marka taariikhdii, bishii iyo sanadka ayaad ka dooranaysaa. marka farta ku qabo oo dib u laabo. xasuusnow inaad taariikh sax ah qorato. haddii aad wax un iska geliso hadhow way adkaanaysaa. fadlan markasta xasuusnow inaad meel ku qorato macluumaadka aad ku diiwaan gelinaysa Apple ID-gaaga, hana noqdaan macluumaad 100% sax ah oo ID-gaaga ama passport-kaaga laga heli karo. kadibna waxaan leenahay next. halkan marka wuxuu ku siinayaa fursad aad ku isticmaasho email-kaaga ama aad ku samaysatay email cusub. haddii aad lacala Gmail leedahay, Gmail-kaaga ayaad ka dhigan kartaa Apple ID. haddii aadan wax email ah lahayn ama aad doonayso inaad email cusub samaystaan, waxaad leedahay don't have an email ayaad ku dhufanaysaa. kadibna wuxuu ku leeyahay haddaadan lahayn email address waxaad heli kartaa email bilaash ah oo aad ku isticmaasho Apple ID-gaaga. waana sidaan rabna soo maaha. kadib marka waxaan leenahay get an iCloud email address. halka marka waxaad haysataa fursad aad ku doorato email cusub ama aad u isticmaashay email aad hore u samaysatay haddii aad haysato mid ku khaas ah. laakiin xasuusnow casharkan wuxuu ku saabsan yahay qof markii ugu horeysay isticmaalayo aaladan. marka waxaan dooranaynaa email no khaas ah. markaad geliso waxaad u baahneed halkan ku sharaxay waa aragto wuxuu ku leeyahay this will be your new Apple ID. emailkan wuxuu noqon doonaa Apple ID-gaaga. kadibna waxaad leedahay next. kadib halkan mar kale ayuu ku xasuusinayaa oo uu ku leeyahay emailkan wuxuu noqon doonaa Apple ID-gaaga, dibna uma bedeli kartid mar kale. kadibna waxaan leenahay create email address. halkan marka wuxuu ku siinayaa fursad ku doorato password. wuuna ku sharaxayaa wuxuu ku leeyahay passwordkaagu waa inuu ahaadaa ilaa 8 xaraf, ayna ku jiraan nambaro, xarfahana iskugu jiraan xarfo waaweyn iyo kuwa yaryar. kadib markaad passwordkaad u baahnayd doorato, ku dhufo next. halkan marka wuxuu ku weydiinayaa inaad telephone number-kaaga geliso. marka muhiim weey inaad telefoonkaaga ku xirto si haddii lacala uu kaaga lumo ama qof kale uu isku dayo inuu ka xado Apple ID-gaaga, adiga ayaa lagu soo dirayaa koodka. halka marka ugu horeysa wuxuu ku soo qabanayaa wadankaad marka hore dooratay iyo koodkiisa. tusaale ahaan haddii aad Soomaaliya joogto oo dooratay Soomaaliya, waxa ku soo baxayso 252. marka wixii 252 ka dambeeya ayaad qoraysaa. kadibna halkan waxaad dooran kartaa in koodka lagugu soo diro text message ahaan, aad fariin lagugu soo diro ama lagu soo waco. wicitaanka wuxuu noqonayaa call baa ku soo dhacayo, callkaad qabanaysaa, kadibna lambarku ku yeerinaya sida 1 2 3 4 saasoo kale kugu yeerinaya, waadna gelinaysaa. laakiin markasta waxaa fiican inaad text message doorato. kadibna waxaan leenahay next. kadib wuxuu ku soo diraan text message oo code ku jiro, kadibna codeka ayaa gelinaysaa. hadda way soo dhacday, codeka ayaan gelinayaa. halka marka waxay ku weydiinayaan inaad terms and conditions ka akhrisato, yani xeerarka ay ku shaqeeyaan in akhrisato, laakiin qof akhriya ma jiro waqti badan u hayo. haddii aad marka doonayso waxaa oran kartaa in maaragtay email ahaan lagugu soo diro xeerkan, ama intaad mid u furto ayaad akhrin kartaa, laakiin badanaa dadku ma akhriyaan waqti badan kulliba ma doonayaan. sidoo kale haddii aadan ku qanacsanayn waxaad dhihi kartaa waad diidi kartaa. laakiin maadaama shirkadda maalgashatay oo telefoon ama iPad ka soo iibsatay, waad ku qasbantahay inaad agree tiraahdo. kadibna waxaan leenahay agree. hadda marka wuxuu ku sameeyay iPad-ki, wuxuuna ku leeyahay way qaadan doontaa daqiiqada yar. marka sug ha ka bixin hana xirin. halka marka tilaabooyinka ugu dambeeya ayaa mareynaa, wuxuu ku xasuusinayaa inaad iPad-kaaga markasta aad update ku sameyso, maxaa yeelay markasta wuxuu ku soo daran macluumaad ama security cusub. okay, kadibna waxaan leenahay continue.
halkan wuxuu ku weydiinayaa marka inaad locationka isticmaasho. Locationka marka waad iska xiri kartaa haddaadan u baahnayn, laakiin haddii aad map isticmaasho ama aad applicationada qaar aad isticmaasho ay locationka u baahan yihiin, kadibna waxaan leenahay enable location services. halkan marka wuxuu ku weydiinayaa inaad Siri setup garaysato. marka haddaad Siri isticmaasho waxaad oran kartaa continue, laakiin hadda ma doonayna waqti badan kulamina, waxaan leenahay set up later in settings. halkan marka wuxuu ku weydiinayaa inaad screen time samaysato. tusaale ahaan meeqa saacadood aad iPad-kan isticmaashay. tani waxay ka caawinaysaa haddii aad maaragtay ilmahaaga ay iPad-ka wax ka bartaan ama ay game ku ciyaaraan, waxaad ogaan kartaa meeqa saacadood ay isticmaaleen. haddii aad doonayso marka inaad sida loo setup gareeyo, sida loo sameeyo screen time-ka aad barato, fadlan comment-ka noogu soo qor, cashar baan ka samayn doonaa. hadda laakiin waan ka gudbaynaa, waxaan leenahay setup later. halkan marka ugu dambaysa waxay ka codsanayaan inaad la wadaagto sida aad u isticmaasho iPad-kaaga. taas macnaheedu maaha inay macluumaadkaaga arkayaan, waxay la soconayaan general use wax la yiraahdo, yani sida aad u isticmaalayso applicationada aad isticmaasho, haddii uu ka damo ama maarad cilad ay ku timaado report bay helayaan. marka laakiin markasta waxaad haysataa fursad oo ah don't share. marka badan anigu waxaan iska doortaa don't share. halkan marka wuxuu ku sharaxayaa waxa true tone ay tahay. true tone waxa weeye habeenkii markay tahayna screen-ka xogaa dim ayuu noqonayaa, oo yani indhaha si uusan kaaga qabanin. marka halkan ayaad ku dhufan kartaa oo fiirin kartaa waxa u dhaxeeyo. halkan haddaan ku dhufto waa aragtay blue bay noqonaysaa, haddaan ka qaadana waa aragtay waxay noqonaysaa dim. taasi marka waxay ka caawinaysaa inay indhaha iftiin badan uusan kaaga furin oo hadhow ma aragtay aysan cilad kaaga imaan indhaha. kadibna waxaan leenahay continue. halkan marka waxay ku weydiinayaan inaad doorato muuqaalka iPad-ka. tusaale ahaan haddaad doonayso inuu iftiin noqdo oo light uu noqdo, light-ka dooranaysaa. haddii aad doonayso inuu mugdi noqdo, dark ayaa dooranaysaa. tusaale yar haddaan ku siiyo, hadda aan ku dhufto dark oo meelihii cadaan dhan way isbedeleen, waxay noqdeen mugdi ayay noqdeen. haddii markaan light-ka ku laabanana waa aragtay light bay noqonayaan. marka haddii aad dark isticmaasho, batteriga ayaa ku save garoobayo, indhahana iftiin badan kaaga furaya habeenkii. laakiin hadda waxaan ku sii wadanaynaa light-keena. kadibna waxaan leenahay continue. halkan marka waxaan maraynaa boggi ugu dambeeyay oo waxay kugu soo dhaweynayaan iPad-kaaga, waxay ku leeyihiin welcome to iPad. si marka aad u isticmaasho iPad-kaaga waxaad leedahay get started. gul wacan sidaas ayaad ku setup garaysatay iPad-kii, aadna ay kala cusubna ku samaysatay. si aad marka u aragto account-ka kuugu diiwaan gashan, ku dhufa setting-ka. kadibna waa aragtaa magacaaga ayaa halka ugu horeeya ka soo bixi doono. kadib magacaaga haddaan ku dhufatana waxaa kuu soo baxayo email-ka aad ku furtay, halkaan ka arkaysaa. hoos haddaa u baxda marka waa aragtaa iPad-kana ku jiro, waa aragtaa. maadaama marka ay Apple ID-gan uu cusub yahay, waa aragtaa halkan iPad ayaa ku xiran. laakiin haddii aad Apple ID iyo telefoonno iyo kombiyuutarro badan aad leedahay, listigan soo wada geli doonaan. sidaasna waxaad ku baratay sida loo setup gareeyo iPad cusub iyo sida loo sameeyo Apple ID cusub. haddii aad doonayso inaad barato sida Apple ID looga sameeyo telefoonkaaga, MacBook ama iPad-kaaga, cashar dhammaystiran ayaan ka sameeyey. ku dhufo kaarka dhanka midigga kaaga muuqdo. sidoo kalena linki waxaan soo gelin doonaa description-ka ayaan idin dhigi doonaa.